كلي برنامجك حصالها كنت شاكية شاكو يتطبط ضرب الهواء دي سومر يوكتا وطن تلفزيون كأول تعيشين سومال نيوز تي في تطبط كشاكوين كان لين هيا هدان دين دول مرو برنامج كنا تطبط كن والله بشاكو شاكا نحتال وأنا قاعد كنت قولي بقى تكوّد واحد تاي نينكي هو يدي حصوصتي حتى كنا وحكون راعي دون الشاكية رينا حيصله وآدو ونكسن قرقال بني آدم نمو waxaynu ku soo gabagabayn doonaa sheekadeena labaad oo iyo saddexaad oo ah wala kala qaada waa mar kale aan idin leh marka ku soo daashaan siyaasadda hadal haynteeda ku soo xiiqdaan qabyaaladda ee ka hijigtaan idinku calaysan fiid ku soo itaan qaladiina gufuurka taagaya caradaha kula dhicina dumarkii iyo caruurtiina soo qaata kitaabka sheekooyin ku qorayeen konta sheeko laba ka mid oo akhrista idinku qoslaya saaxda aan idin bilaaba hadaba wada ka qaada ee sheekada koobaad halka dhugeeda waxa la yahay ninkii هذا نكي هو يدي حصوصتي ويجا عرر هو يدو وقالي بمئات ميوردن ميدو كي تونتها يالو طاب كي تونتها كوهذا شدل كي تونتها شوك تقارد دون ساعة كلها هو يو لأنتد وبد ما بربارو ما باتها هو يحمي هو يلان بيلانتا سيدي بن هو يحمي ما شفتو واحد بمئات كوريا uu rag ku noqda ama dumar taabaqa galay ku noqda waxa weeyaan barbaarinta hooyada dulqaadkeeda sabirkeeda iyo waliba tarbiyada ay siiso waxa tahay markaad dhalato waxaan waxba qabsan karayn afka iyada wax ku qasiisa dheecaanka jirkeeda ayaad quudataa cuntaa oo caanaheeda ah saxaradaada kaadidaada iyo wax oo dhan bay u dulqaadataa oo nadiifisaa hooyadu runtii waa lagama maarmaan ninka aan hooyo haysanina nolosha wuxuu ku soo balbaalaa si rafaada oo ku koraa ninka hooyo korisayna la nooc maaha karajada ku soo kora ilaahay waxaynu uga baryaynaa hooyooyinkooda inuu dembiga dhaafo dembigooda dhaafo nabigeennina wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam jannadkum taxta aqdaami ummahaadkum jannadiinu waxay ku jirtaa lugaha hooyooyinkiin weli maaha lugaha ula hoostooda waa taxta aqdaami ummahaadkum ninka ay ka raali noqoto hooyadii إلهي الله لك نقطة والوجود عيسى إله الرجل ماذا والدك وهو ذي أباها إلهي هاي النجار الله النقطة هذا الشيء كذا هو ماذا وحليها الكل كذا نكي هو يدي حصوصتي من طيارة مرغمالة الشقالة ونشغل شري شركة ذا نسكارسين تمت كم إذا ما قاعد ميمي رجع إلاليتها ورضا لها واسمانها هذين كي هاي شقدي سحلة أو شقية ayaa waxa uu qaadan jirayna wax iska kooban bay ahaayeen oo ugu filan saddex xillo cuntadooda isagu laba cuni jiray quraacdii qadadii casimaba aqooni iyo bahalkan dadku shaydaanku ku qaaday ee liha qaadka oo isna ka qaadan jiray falarkiisa maalin kasta intaaba kamay badnaynba waxa uu bishaqaata hase yeeshee galab walba marka uu fadhiyo oo raabsanaya bahalka meel fadhiisan jiro ma fadhiiso oo ragtulkii u badanaay fadhiisan jiray ayuu wuxuu soo xusuusan jiray hooyadii isagu miyibu ka yimi oo magaalada markaas soo galay hooyadii tuulaan magaalada ka fogeynba joogta ayuu xusuusan jiray hadal haynteeda ayuu faladka ku dhameyn jiray iyo sidoo uu jecel yahay inuu mar wax taro wuxuu ku calaacali jiray sidii hooyadii soo korisay taabkay u soo gashay iyo maanta meel ka dhaca uu ku hayo iyo abaal darrada oo aanu mar rabo xusiinin wuxuu mar walba ku taalmi jiray inuu bishan soo socota waxa uu qaataba iyada u geeyo wuxuu hadal hayntaa wadaba maalintii dambe ilaahay ku toosiyay oo qadar ala noqotay inuu tago xafiiskii wuxuu u tagay ninkii isaga madaxda ahaa uu war arintaas ay haysata waxaan qaatana waa taqaana hooyadeyna waa ii baahan tahay tuula halkan way degan tahay saan u shaqaynayna beesteen ma siin be waxaan qaatana waxba igama halaan shirkadda waxaan ka codsanayaa in $100 la amaahiyo waan hooyadii u geeyo oo bilba wax liiga gooyo ninkii uu farxay ninkii uu la hadlayay wuxuu aad bad wanaagsan tahay dad hooyada xusuusatayba nin fiican waa tahay boqolka amaahda konton baan kugu deeqay wali baan kugu dareeno boqolkan iska bixi konton kana ana ku siinaya wuu kacay xafiiska uga soo dhameeyay boqolkii kontonkiina ugu daray waa kaas buuli laba cisana waan ku fasaxay u geey hooyada ninkii uu soo baxay xafiiska markii soo boqol kontonkii isagoo haya ayuu is aaga ilaa waa nin tuulo tagay iyo reerdadu ka maqlaamtay mister dharka wuxuu xidhanyayba waa surwaal caawla loo cadaaday iyo shaar ka daran iyo laba kaboobo rifrifa iyo cimaamad ciyaal calala wuxuu qodnay xalay waxaan tuuladii dhalinyaradii ku taqinayntaa wada joogteen wala tagi meestada shaqo helay oo liha uu shaqeeyay horta baadlaha ka radbeel baadlu tagi laba kabood surwaal iyo shaar iyo cimaamad
halkaa waxaa booday markiiba $30 waxaa soo hadhay 120 qada wuxuu u yaqiinay ninkan Axmed baa la oran jiray qada wuxuu u yaqiinay bariis jaya oo 4 aan ka badnayn bariga wuxuu maanta qodhay iyo xaraday bedel bariiski hilibkii markuu dhaqa inta ku talamayay dharkiina uu soo xidhnayna mid baa dhinaca kaga qabtay saaxiibkeena wariyaa Axmed maanta xaalkaagu waa bedelay waa adiga soo arad beeshay bas waraam soo kaali weyn soo wada qadeynina hilibgeelkii baa jir $15 baa halkii laga tufayay waxa soo haray $100 dheerta jaadka wuxuu qaadan jiray falladhe maanta wuxuu gobonimo rubaca qaado kii la socdayna wuxuu qaaday fallad sigaarkii iyo sharaabkii iyo wixii markii lagu darayna iyana waxay noqotay 20 kale 80 isagoo haysta ayuu raacay baabuur xaajiyada oo 2 shir leh oo tuuridii u baxaya oo cidhiidhiya shirkii baa leeyahay halkan waxa ku fulaysan xaq hore 3 qof iyo darawalka duwan la xagista cidhiidhiga naga taaya anigu waa la karaysanaya $20 xaq hore kaliya ku karaystay 60 baa haray tuuridii markuu soo tagayna dhalinyarada ma ku soo yaay Axmed baayimay waswa mitin qaado laba mitood qaado saddex qaado adigu aqaar qaado fiidkii markay tahay ayaa isagoo $10 shebka ugu jirto ayuu mid ka fadhiyay weydiin war islaantii heblaayay dhashay tuulada miyay joogtaa markaasaan maya waa taroob gudaayo inankii hebelo reerkiisu mid heblaayay degan yahay ay caana u doonatay laakiin way soo noqonaysaa alxamdulillah hay sheeginay marka dambe wuxuu keeniyay aruurtan baaburkii hebel raacaya ninkii hooyadii xusustay هتجنا وطن يانا شيكا كلا قرقار كبني آذن مذو تربذيه وحكم قصان إذا عضايا تلفزيون هذا هذه الشرعية الله في ذنية تذكر وقرقار بني آذن مالية وحيس عاوية بني آدم قوردن دين كستي هايستان با مركا لباتهم مال كرلعضو وحال يسكو عاوية بني آذن نمو dadka qaar gargaarka waxay u fidiyaan dadka ay isku qoladii qaar waxay u fidiyaan kuwa qoyskooda ah ee waliba ka sii sokeeyay laakiin bini aadamku oo dhamuu iscaawiyaa la isku caawiyo midab la isku caawiyo diin kaliya la isku caawiyo muxuu ahaayeen qolo la isku caawiyo qoys waxa ka wanaagsan bini aadamnimada in la isku caawiyo inkastoo islaamnimadu ay ka sii xaq jirto ilaahay yidhi innamal mu'minuuna ikhwa oo walaalkaaga mu'minku ka xiga inta kale bini aadamada gargaarkiisa wax jira weey laakiin sheekadeena li magacaas ay leedahay ujeedada faham dhalinyaradu noocyo badan bay u xaragoodaan qolooyin timaha waxay la baxaan waad aragtayoo tima aad moodo diig waa nin iyo tuuqi rag sideenoo kale u xiirtaan ragna ilaahay baaba u xiiro waa mudux qaarna timay la baxaan nin haddaba ragga muldhiya ahaa oo isagu timuu lahaa laakiin dooqiisa haynu muldhiyo ayaa maalin weydiin war heedhe adoo tima leh maxaa timaha goor walba u muldhisaa basi waa gargaar biniaadanimo maxaad ku gargaaraysaa timahaaga rasuul gargaar biniaadanimo oo lagama maarmaana wey rasuul maxaa dhacay waa ragga masiibadu ku dhacday buu tumo ka holmeenee bidaarta leh nahda ah ayaan ku asturayaa buu haddii timaha la wada baxno kuwaas xaggay ku hadhayaan buu waa gargaar biniaadanimo هتجينا برنامجكم النص على ولي بلنت إنه وحويان كنت شاكو يشاكو شاكبني حتى بطري الحدي ده وحلي والله كلا قاضى وها والله كلا قاضى حنون ذوي ذي بدي إنه حنون تاني دقاتيرته عذرها كوعم بحي الدوية أنا قلت شاكذا إذا وضر ياي لكن لما بينه كسو قاضين عذرها مثل كلا قاضى يميل كلا قاضي وحيو يعني infectious iyo non infectious waa mid qaar la kala qaado xanuunada kala qaado iyo qaar la kala qaadin waxa uu sii gadagalmayno kuwa la kala qaado oo idka wiswisin maayo way tire badiyeen dawadeena id kala mid baana laakiin waxa la sheegayaa mid kuwa aan la kala qaadinaha ayaa aynu caaw ka sheekaynayna oo nin ka dhigay in la kala qaado laba nin baa saaxiib ahaa ninna waxa loo jeeday Xuseen ninna waxa loo jeeday Faarax labadoo dhalinyaro ahaayeen rag aad isugu dheer oo isjecel bay ahaayeen isla soo barbaaray malcaamad dugsi sare ilaa jaamacadooda galay oo markaas shaqo wada bilaabay oo aan kala hadhin oo rafiiq ah Faarax ayaa isagu markaa hawl bilaabay hamigur inuu buu la sheekaysanay waa meel wada dhigteen isguursadaan ninkaas
inantaa ula sheekaysanay wuxuu tagi jiray hameenna go'an oo uu ogaa Xuseenna waxaan ugu tagi jiray xaafadooda meelan kaba fogeyn oo inan lagu qabo iyana tolkeeda ninkani faarax ay saaxiibkayeen Xuseen nin kaftan badan buu maalmaha kamida ayuu war inantan la tus inantan la sheekaysta nut masuuliyiinta maxaan tusay inantii wali anigu iimay soo wareegini marka aan arrimaheeda dhameeyo ee aan la qalqalo ama aynu doonay layna siiyo aynu baran doonaa xaalkaygu waa ko tarabaan isaan kugu baraabuul ana aba barasaydu aan wali xalaaloobin oo hadii la igu arkaan ay qabe habeen buu dadu ogaaday aqalka ay ku wada sheekaystaan la wana meesqiineen habeen buu gasii horiyay fiidkii inantii joogto salaamo ma inanta ay hebel isku cindiyin baa jiro haayo anna waxaan ay saaxiibkii faarax baan haayo ma sidoo waa wiga ka sheekayaaba soo xuseen matid hadda marka soo gashan kortay tilmaantaada dhan buu sheegay ina rafiqtiina walaaltiina waxa soo xitaa wuxuu ugu leeyahay guurkeena isaga milxiisuna noqon doono meebu ma sidoo masuul buu imanaya joosay waan hadda waan tagayaa buu leeyahay waxaan u sugi maayo isaga inaan ku bartuu baa rabay ka albaabka soo xiro markuu baxayo ku yiri inaadeer wala kala qaadaa واسد الحلقة القاضة مركز ده بدارته مركز ويا بدارله مركز ده صاحب كي فرح وحوها ركب بدارته أن تنكل هاي له تنب إنه تسوي حيوان ستة إنه صاحرته مركز التواري يسله لها بارينا ك تماو صاحر تاي ما لها بدار مركز لا تقوم بتاي وحفهمه هبي والبميو حيرتها مياد مرون تنكو أركتين تن لا تن ملبل نكن كودا وانا لك القاضة باشا habla badan oo kula mid ah oo rag bidaar la sheekaysan jiray ayaa maanta Masarka ku asturoo ku geejiyay buu oo raqaadsi marka waa ku digay iska ilaale alla waan hoognay tawsarayo ka qaaday tir isaguna yuu ka qaaday marka soo abtigi oo waxaan jiro barweyta sakaraadaha oo bidaar laha ba qaadsiin taanu dhiman Allah hadaba wala baay wala saan yaalaabay tir ninka waan wada sheekaysana waan doonayaabay marka soo hal talaabo yaanu ku soo jidsan wax ka yar markuu ku sheekeynay wiiska tag faarax waxba ka warhayn ba soo galay inantii musalaamayo waa la isag fariistayo bawaanin inanta doonayay ku soo durkan markaas waa inaan xishoonayso ku tiri waa baasha waa la sheegay hay qaadsiinay gala duro hoos bay ku tiri baasha waa baxay sheegaysa waa la sheegay baasha baaderka abtiga baad ka qaatay oo ku qaadsiin ana hay qaadsiinay gala duro sunna maxaa sheegaysa naani warnin naga naxayay sheegay tiri bidaarta gala duro hay qaadsiinay هو كوسه الكاسيل حسين وقصلوا شلون عصبتها هذا العتقاد سنه سكن قادسين لا وها والله كلا قاده وها والله كلا قاده هتجينا waxay noo haday tartarankii aynu barnaamijkeena had iyo jeer ku soo xiri jiraaha ha ilaabina ballanteena xusuusnaada kulankeena marka ku soo xiiqdaan siyaasadda ka hidigtaan hadalhaynta qabyaalada iyo isugu faankeeda ku soo heetaan gurihiina fiidka idinkoo calooshan xaliidi ka buuxay caro ha ku seexanina carada waxa ku yeelin ubadkiina iyo caruurteena dawadaana haya soo qaata konton sheeko mid ka mid ah akhrista idinkoo faraxsan seexda waa markaliya barnaamijkeeni konton sheeko oo ka daawanayseen TV-ga caanka ay wada jeceshiina Somali News TV